qadhaadh ayaa maanta galikii dambe waxa uu ka qarxay duleedka waqooyi ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo ciidamada beeleed ka soo jeeda magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. dagaalkan ayaa waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ka qarxayay duleedka magaalada Buuhoodle iyadoo markaasna isku farasaarayeen ciidamada Somaliland iyo ciidamada beeleed ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ku sugan magaalada Buuhoodle. dagaalkan ayaa ilaa iyo iminkaan la cadayn khasaaraha dhabta ee dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac. ha yeeshee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa la soo gaarsiiyay gaari kamida baabuurta xamuulka qaado markaasi sida la sheegay laga soo qabtay ciidamada maamulka Somaliland. gaarigaasi oo maanta garinkii dambe la soo gaarsiiyay magaalada Buuhoodle iyadoo markaasna ay wateen shacabka magaalada Buuhoodle. sidoo kalena waxaa la sheegay gaarigan in ay saarnaayeen saanad hub kuwaasi oo ay gacanta kula wareegeen taliyaasha horkacaya ciidamada beeleedada gobolka Cayn iyadoo markaasi dagaalka kula jira maamulka Somaliland. mana aha markii horeysay dagaal noocan oo kala u dhexmaro labadan dhinac iyadoo inta badan ay ku gacan sareeyaan shacabka ama ciidamada beeleedada gobolka Cayn. magaalada Buuhoodle ayaa maanta galinkii dambe waxaa laga dareemayay hadalhaynta dagaalkan iyadoo markaasna lagu arkayay baabuur aad u fara badan kuwaasi oo ku siixiimaya ama ku qulqulaya dhankaas iyo jiida uu dagaalku ka soconayo. dagaalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay maanta galinkii dambe soo gaadheen magaalada Buuhoodle madaxda maamul dhawaantan laga dhawaaqay magaalada Taleex kaasi oo loogu magac daray Khaatume State of Somalia iyo sidoo kale kooxda loo yaqaan G9 ka ahaa hidisihii shirka Khaatumo iyo waliba cuqaal iyo waxgarad iyo waliba ismada deegaanada Sool Sanaag Cayn qayb kamida. maxamed cismaan cabdinuur telefishinka caalamiga Somali Channel Buuhoodle.